soo dhawaada mar kale bismillahi rahmaani rahiim xoogaa connectionka xumaa mar kale soo dhawaada waxaan rajeynayaa ramadaan kariim akhyaarta qiimaha badan meel walba aad joogtaan iyo weliba si walba aad noo maqlaysa wanaagsan ramadaan mubaarak kula caamin wa antum bikhayr ramadaan fadligeeda inuu ilaahayna siiyo shawahana oo ummadda Soomaaliyeed cadow ku ahna inuu ilaahay naga xijaabo intaas kadib waxaan aad ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed runtii dhanka wanaaga inay boqolkiiba 80 ay loo soo leexday isla markaana ay doonayaan inay mar walba ay ka qayb galaan ama ay u hiiliyaan wadankoodii Soomaaliya dhibaatada ka jirta iyo dawladnimada ay garteen in meesha kaliya adduunka lala barbartami karo ama lala higsan karo inay tahay shacabka Soomaaliyeed ay garteen taasi sharaf iyo qadarin iyo ixtiraam ayaad ku mudan tihiin mid kale waxaad la socotaan cadowga Soomaaliyeed mar walba wanaaga iyo wanaagba markuu wadanka ka dhacayo cadowga mar walba waxay adeegsanayaan ama shisheeyuhu mar walba waxay adeegsanayaan shakhsiyaad luqadda Soomaaliga ku hadlaya adeegsanayaan oo Soomaali kula aadan ka dareemaynin ayagoo marka mabda qabiil isticmaalaya dadka noocaas oo kala ahna waxaan rajeynaynaa in mar walba laga guuleysan doono rajeynaynaa waqtigoodii waa uu dhamaaday haatan kadibna waxaan rajeynaynaa in horay in loo socdo social media bariyahan waxyaalo fara badan aad ku aragteen oo ku saabsan Facebook oo feegi in la sameeyay oo aniga magaciga lagu samaystay oo been ah oo magaciga Salman Jamal News lagu samaystay la yiri waa la jabsaday dadka noocaas oo kala ah markii ay awoodi waayeen ama ay kalsooni ay ku qabi waayeen Facebook-yada ay ayagu ay leeyihiin ayaa waxa ay door bideen dadka bulshada magaca ku leh sharafta ku leh wanaaga bulshada ku leh inay magacooda ay waxyeelayaan ama ay markaasi ay dadka ay ku dhibaateeyaan laakiin waxaan u sheegaynaa in mar walba laga guuleysanayo Facebook-ga rasmiga aan leeyahay waa midkan oo aan cidba ila wadaagin wax laga jabsadayna ma jiraan kanan isticmaalaa kanan leeyahay kanan meesha aan ka duulayo waa halkan dawladda Soomaaliya ama isbedelka wadanka ka jira iyo hubka dhigista iyo xakamaynta qoryaha lagu sito caasimadda dad ayaa waxay isku dayayaan inay qaab qabyaaladeed ay ka dhigaan qaab qabiil inay u bedelaan ayaa waxay isku dayayaan dadka qaar oo social media isxabeen walba inay soo fariistaan warar propaganda ah been ah oo loo soo dhiibay inay shacabka Soomaaliyeed ay ku maran habaabiyaan ay mar walba isku dayayaan laakiin waxaan u sheegaynaa in caasimadda magaalada Muqdisho isbedelka hubka dhigista markuu golaha wasiirada Soomaaliya ay meel mariyeen ilaa iyo maanta waxaan la soconay isbedel weyn inuu dhacay magaalada Muqdisho isbedel weyn uu ka jiro taasina waa Ilaahay mahadi shacabka Soomaaliyeed waxa sharaf ah ama aan ku amaanaya oo aan runtii aan ku qiimeynayna kuna qadirinaynaa waxyaalo fara badan oo dhacay oo ay wanaag fara badan ay u heeliyeen ummadda Soomaaliyeed oo ay huiliyeen oo aan dhihi karno wax wanaagsan ayaa dhacay oo ay sameeyeen marka waxaan la soconaa in dhanka wanaaga mar walba loo jeesto oo waxyaalaha wanaaga markaas wadanka ka jira in loo leexdo shakhsiyaadkaas waxaad ogtihiin ma ogola wadanka inuu nabad inay ka dhacdo boqolkiiba 75 bulshada Soomaaliyeed waa dhalinyaro waa dad dhalinyaro ah aniga kamida idinka kamida dad kale kamida waxa la rabaa in wixii 91kii ummadda Soomaaliyeed ay dhibaato ay ku noqotay oo qoysas far badan ay dad ay ku waayeen aabayaal lagu waayay hooyooyin lagu waayay dagaal qabiil aan faa'iido lahayn in dib loo soo celiyo siyaasi la ajligeeda
waajibka qof walba muwaadin Soomaaliyeed saaran waxay tahay social media adduunka dawladaha lagu burburiyaa qarankeenana waxa la doonayaa in lagu curyaamiyo anagoo aan la socono casrigan cusub ee aan joogno in wadamada jaarkana la ah sida Kenya ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto heerka ay gaareen tareena la meel marinaya tareena laga howlgeliyay ka shaqeynaya anagana waxaan wali joognaa in dawladnimadii dadka qaarkood aysan ku dhiiran inaan u heelino mar walba wanaaga dawladnimada inaan u heelino aan hore u socono wanaaga wadankeena hormuud ay ka yihiin shacabka magaalada Muqdisho shacabka gobolada dalka oo dhan oo hormuud ay ka yihiin meesha wanaaga ay gaareen dawladda ay u taageereen in laba qofood ama saddex qofood ama afar qofood oo qol ku xiran inaysan shacabka niyad jabinin oo aan mar walba aan dawladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed wanaagooda inaan wixii ay jecel yihiin inaan ku taageerno dawladda dhaliilo way leedahay dhaliilo way yeelan kartaa qalada ka dhici kara laakiin suxufiyiin howshaas u tababaran ayaa jooga laakiin qof shakhsi ah oo dal shisheeye jooga oo qol ku xiran 24 saac inuu yiraahdo qabyaalad meesha la soo istaago oo aan ka dhageysano wanaaga wadanka ka dhacayan uu qariyo cid ka yeelaysa bayraatay ma jirto aniga ka shakhsi ahaan kama yeelayo cid kale ka gambanaysa ka gambato laakiin wanaaga waajibka dalka iga saaran intaan noolahay kuwa propagandada 24 saac la soo taagan waxaan diyaar u ahay in aan ka hortago qoraal haday keenan qoraal inaan kaga hortago cilmi saxaafadeed haduu yimaadana cilmi saxaafadeed marka hore aysan meesha ku haynin qabyaalad iyo qurun iyo qabiil iyo waxaan loo joogin ay ummadda Soomaaliyeed rabaan inay indhaha kaga ridaan laakiin cid ka yeelaysa male maanta waxay isku dayeen inay sameeyaan inay yiraahdaan Salman Facebook is waa kana dad ay ku caayaan dad dawladda ay ku caayaan shacabka Soomaaliyeed ay ku aflagaadeeyaan ay ku marin habaabiyaan ayagoo ciwaano magaciiga ku samaystay oo feega inay samaystaan inta magaciiga iyo sawirkeyga lagu aflagaadeeyay qoraaladii ugu dambeeyay oo halkaas dadkaasi ay samaysteen waan ka raali gelinayaa magaciiga iyo in lagu aflagaadeeyana iyo sawirkeygana waan idin ka raali gelin laakiin waxaan idin sheegayaa inaad ciwaankaas waa taqaanaan ama ciwaanadaas waa taqaanaan ee been abuurka ah inaad mar walba aad la socotaan iyo like-ta aad saarteen iyo kulli inaad unlike dhahdaan oo aad kala noqotaan oo aad wadankiina waxaad ugu heelin kartaan shacabow inaad ugu heelisaan waa lagama maarmaan gabdhaha lacagta yar in la soo siiyo codka laga soo duubayo oo indhaha loo soo xirayo gabdha sharaf laha tihiin gabdha Soomaaliyeed tihiin qabiil iyo qurun iyo waxaan jirin yaani laga dhaadhicin lacag yar ha qaadanayna waajibka wadanka oo u baahan ama waajibka wadanka idin kaga saaran gudda dawladdan iyo dawladihii ka horeeyay dawlad walba wadankaasi ka dhalato wax bay soo qabtay raggan ay idin sheegay waad la socoteen ilaa iyo Sheekh Shariif ilaa iyo Xasan Sheekh ilaa iyo madaxweynahan hadda joogo kulli aflagaado iyo propaganda iyo waxa loo joogay wadaan iyagoo dawlad wax ka sheegayo wanaag dhac wadanka ka dhacay oo ka hadlayna lama arkin ayagoo wax sheegayna lama arkin marka waxa soo dhan inaad runtii aad ka hortagtaan oo aad xumaantooda dhageysanina ayaan mar walba waxaan jeclahay inaan idin kula dardaarmo ragga noocaas oo kala ah waxaan leenahay ama waxaan kula talinaynaa Soomaaliyeed tihiin dalka kama maarantaan caruurtiina joogto qaarkiin caruurtiina iyo xaasaskiina jooga kulli waxa laga yaabaa Yurub qaarkeed inaad joogtaan muddo ku samin adiga waxa laga yaabaa dadka qaar ama dadkaasi qaarkood aan ka hadlay Yurub inay joogaan sanad ama 2 sano inay joogaan oo aysan wali yaani aysan qaadan ama la qaabilin ayaa laga yaabaa marka walaalayaal sharaf waxaad ku leedihiin wadankiina caruurtiina ku nool dagaal maanta wadankaas haduu ka dhaco dadka Soomaaliyeed ayaa dhibaato ku dhacaysa caruur far badan dhibaato ku dhacaysa hooyooyin far badan dhibaato ku dhacaysa laakiin shacabka Soomaaliyeed intoodii badan dhalinyarada ee social media isticmaala waxay og yihiin waxa tihiin la ogaa mar walba la ogaa waxyaalaha sheegi jirteen oo dhan runa loo maleyn jir laakiin hadda waxa la ogaaday xaqiiqda runta isma qariso wixii wanaaga la gartay qof walba Soomaaliyeedna waxa waajib ka saaran wadankaaga hadaad ugu hiilin karto qoraal yar
ama hadal wadankaaga u heli dowladnimada u heli hubka dhigis ayaa waxaa loo bedelay dadkaasi ay u bedeleen in qabiil hub laga dhigayo qabiil cid hub ka dhigayso ama hubka dhigis guud oo wadanka laga sameeyay ma jiraan oo kaliya waxaa laga hadlay hubka ay wataan ilaalada madaxda ee magaalada Muqdisho 24 saac la dhex maraan oo dadka qaar laga shakiyo ilaaladaas inay dad ka shakiyaan ay xabad ku dhuftaan oo ay kamid ahayd wasiir Siraaji sida lagu dilay shakigaas ay xukuumadda keentay in shacabka Soomaaliyeed ay taageeraan reer Muqdisho oo caasimada ku nool oo dawladnimadana ubad dhaxaad u ah oo ah halbowlihii dalka meesha dawladda ay ku shaqeynaysa ayaa taageeray wanaageedna waa la guranayaa soonka maanta intuu maray aan ognahay magaalada Muqdisho nabad ayaa lagu afurayaa nabada lagu afurayaa si wanaaga loo dadku ay noloshooda ay u tahay magaalooyin wadooyinkii waaweyn waxa laga waayay qoriyihii yaaci jiray askarigii qoriga wataa laga waayay askarta xiriyahooda loo diray magaaladan isbedel ka jiro isbedelkaasi wadanka ka jira qofka doonayo inuu maanta u bedelo qabyaalad inuu u bedelo oo yiraahdo beel hebel ayaa waxa laga dhigayaa hubka dhigis adeer beesha hubka laga dhigayo adiga dad ka dhalatay dad badana ka dhashay walis yaqaana dad badana ka dhashay wanaagana waxa u horseedayo waa reer Muqdisho marka indhaha ka ridin dadka 4 sano soo socota waxaan rabnaa dawladdan inay meel wanaagsan ay gaarto sidii dawladdii hore meel wanaagsan ay wax u keentay ayaan waxaan rabnaa dawladdan meel wanaagsan ay wax gaarsiiso inaan hiigsanaan rabnaa dadka ama dawladaha jaarka nala ah meesha ay gaareen ayaan waxaan rabnaa inaan la tartanno adigana idinkana waxa doonaysaan inaad qabyaalad nagu celisaan doonaysaan cid idinka yeelaysa ma jirto cid idinka aqbali doontana ma jirto waxaan rajaynaynaa waxa aad ugu mahadcelinaa shacabka Soomaaliyeed oo wanaaga gartay dadkaasi xumaanta ay soo dhigaan 20 qof ka hadlaysa halka barigii hore ay ka hadli jireen 100 qof 200 ruux ay ka hadli jireen maanta waxa ka hadlaysa 20 ruux iyo waxa ka hadlaysa oo kaliya 50 ruux markay wax soo boosti garayaan ayagoo wali website ku xirtay oo rabaan in lacag ay kaga gurtaan waxaan rajaynayaa waxyaalaha ay wadankii ay ku caynayaan oo qabyaalad ay kaga hadlayaan waxaan rajaynayaa dadka markay live ka soo galay ee daawanayaan inay 10 ruux gaartaan rajaynayna 10 ruux oo kaliya inay ku koobnaataan rajaynayna Soomaaliya maanta isbedel weyn ka jiro madaxweyne shacabka u hiilan oo shacabka Soomaaliyeed habeenkii la doortay u kaceen ayaa wali jooga shacabkaas nool ra'iisul wasaare shacabka qulubtooda hantay ayaa nool oo shacabka Soomaaliyeed ee doorteen oo runtii la dhihi karo 60 maalin iyo 100 maalin iyo 60 maalin oo xukuumadda jirta isbedelka wadanka ka dhacayna waa muuqataa marka waxaan rajaynaynaa wanaaga in hore loo socdo ciwaana been hadday samaystaan oo fake ah oo propaganda oo magaca shakhsi magacooda ay awoodi waayeen waxay isku dayayaan magaca dadka sharafta leh sumcadda ku leh bulshada dhexdeeda inay magacooda ay ajifayaan ay xumeeyaan laakiin bulshadu way taqaanaa qofka shakhsiyadiisa oo aad ku ciyaartaan magacaasna runtii waxaan rajaynaynaa in laga daba tegi doono ayaan rajaynaynaa Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nabad nolol hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha lagu dhibaateynaya cadaanka feeraya ku qurbaha ku dhibaataysan caruurta Soomaaliyeed in wadankooda ay ku soo noqdaan ay noolaadaan ay dalal adduunka Soomaaliya la midka ah oo aan ka horeyn jirnay oo aan ka sareyn jirnay inaan hiigsano ayaan rabnaa qof walba mas'uuliyad ayaa ka saaran wadankaaga difaac maanta 75% dhalinyarada Soomaaliyeed waa 75% SYL waxa la socona 13 ruux ahayd marxalad adag ay ku jireen laakiin sida dalka ugu soo hiiliyeen waa la socona anaga laakiin hadda waxaan 75% oo kaliya aan awoodno dawladda iyo wanaaga iyo dalkeena inaan waxyaalo fara badan aan u horseedno wanaag badan inaan u horseedno mar walba aan ku dhiirano naftu mar bay go'aysaa qofku uu dhimanayaa xilliya leedahay naftu ay dhimanayso ha baqin cid ha ka baqin ilaah tala saaro wanaaga ku dhiiro dadka xumaanta inaad yac tiraahdo isku day inaad yac tiraahdo yaan qabiil laga dhaadhicinin qabiil yaan laga dhaadhicin hadaad Muqdisho ku nooshahay kan Garowe ku nool waa walaalkaaga hadaad Garowe ku nooshahayna
kan muqdisho ku nool waa walaalkaaga haddaad muqdisho iyo garoowe iyo baydhabo iyo kismaayo iyo hargeysa iyo boram iyo kulli gobolada dalkoo dhan kulli dhalinyaradu waa walaalo SYL waan la soconaa gobolada ay ka kala timid qabiil ma aysan isku soo raadsan laakiin waxay isku soo raadsadeen Soomaalinimo marka aan ugu hiilino shacabkeena abaarta waxaan ka bixi karnaa dawlad awood leh markaan dawladeena taageerno dhibaatadu waxaan ka bixi karnaa markaan dawladda iyo wanaagga aan taageerno wixii xumaanta aan joojino wanaaggan aan ku dhiirano qabiilka aan ka hortagno yaan laga dhaadhicin qabiil yaan laga dhaadhicin cidda hubka laga dhigayo oo magaalada muqdisho hubka la dhaxmarayso waxay isugu jiraan wasiiro gobolada dhan ka kala yimid oo qabiilo kala gedisan ah wasiir walba beeshiisa ilaalinaysa oo ciidanka ku jiro hubka in la xakameeyo waa wanaagsan tahay magaalada amnigeeda ku jiro cid gaar ah hub laga dhigay ma jirto wasiirada dawladda ku jiro taliyaasha ciidamada gudoomiyaasha intaba tiknikooyinka cabdibilayaasha magaalada la marayo in la xakameeyo shacabka Soomaaliyeed ee caasimada ku nool ay dan ugu jirtaa miraheedna maanta waa la guranaya maanta qodob fiican ay ahayd qodob aad iyo aad ay ugu reeyaan marka waxaan rajeynayaa in laga dhaadhicin xumaan in laga dhaadhicin qabyaalad iyo qabiil iyo qurun in laga dhaadhicin in lagu dhiirado wanaagan rajeynayna dadka xumaanta faafinayna mar walba inaad ka hortagtaan wanaaga inaad ku dhiirataan Soomaaliya waa walaalo dadka Soomaaliyeed oo idil in aan hiigsano wiilka Kenyaatiga ah ee Kenya ku nool ee dawladdiisa wanaagaas sameynaysa wiilkaas inaan la tartanaan doonayna wiilka Addis Ababa ku nool Ethiopianka aan waxaan rabnaa inaan la tartanno aan dhaafno waxaan nahay inaan tusnaan doonayna laakiin anaga inaan isku keejiyo suuragal ma aha waxaan yeeli doonaa ma aha waxaan rajeynaynaa dawladda Soomaaliyeed in dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha ku haysta inay wax ka qabato dhalinyarada Soomaaliyeed ee Seychelles ku nool ee xabsiga ku jira in xitaa haddii wax sameynayso wadankooda lagu soo celiyo kuwa India ku nool in Hindiya laga soo kaxeeyo wadanka lagu soo celiyo waan idinka codsanaynaa haddaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan jecelnahay wax walba wanaag ah dawladda inaan ku taageerno wixii cadow ah oo halka ama meel walba ka soo galaya shacabka Soomaaliyeed isku dayay rajadooda inuu dilan inaan ka hortagno laakiin waxaan rajeynaynaa madaxweynaha iyo dawladda iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ka codsanaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ee xabsiga Seychelles ku jira jasiiradda Seychelles in arintaasi ay wax weyn laga qabtan rajeynina oo dawladdu ay wax weyn ay ka qabato arimahaasi xitaa dhalinyaradaasi dalkooda dib loogu soo celiyo wadankooda xitaa wadankooda ha lagu maxkamadeeyo xabsi weyn garow laga dhisay muqdisho xabsiga ku yaal hargeysa xabsiga wadankooda lagu soo celiyo waan codsanaynaa kuwa Hindiya ku nool sidoo kale ayagana in wadanka lagu soo celiyo ayaa rajeynaynaa waxaan rajeynayaa in baaqaasi dawladda hore u gaaray in ay gaari doonaan ama ay maqli doonaan waa rajeynaynaa oo arimahaasi ay wax badan ay ka qaban doonaan ayaan rajeynaynaa hadduu Ilaahay idmo bil barakaysan oo Ramadaan aan ku jirnaa Ilaahay aan tala saarano aan u duceyno wadankeena kuwa xumaha wada dhibaatada wada dadka aflagaadeynaya qabiilada isku diraya ayaga inuu Ilaahay soo hanuuniyo ayaan rajeynaynaa hadduu Ilaahay idmo dawladdan waa dawlad Soomaaliyeed dawladihii hore dawlad Soomaaliyeed ahayd madaxweyne walba Soomaaliya soo maray oo wadankaasi soo maamulay sharafu naga mudan yahay inaan ixtiraamno mudan yahay oo aan respect garayno aan madaxa saarno ilaa marxalad adag ayuu wadankan u soo horay marka waxaan rajeynaynaa in qabiilka aan waxaas aan kaga gudubno oo aan ka faa'iideysano wixii wanaag ah aan ka faa'iideysano wixii wanaagna aan hore u socon aan taageerno dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha wadanka joogana ayaga naftirkoodana shaqooyinka ay hayaan in fursad loo siiyo shaqooyinka in jaanis loo siiyo dawladda ay ka qayb galaan in oo kaliya dhalinyarada qurbaha ka imaanaysa aan fursad lagu koobine kuwa gudaha wadanka ku nool oo marxaladaha adag wadanka kula soo qaatayna in fursad la siiyo ayaan rajeynaynaa wariyaasha Soomaaliyeed waxaan rajeynaynaa in wadanka hiilo ay u baahan yahay inaan u hiilino
waad la socotaan ku dhawaad nus qarni ama burburkii kadib intaasa balaayo iyo xumaan iyo wax jiran la soo sheegayay haatan bal dhanka wanaaga aan u fiirsano wixii dhaco oo war ahna oo dhacdo ahna oo wadanka ka dhacda lama qarin karayo wixii jiro markaasi xaqiiqada markaasi aan ku salayno Soomaaliya ha noolaato ragga noocaas oo kala ahna iska jira qofku rab ha noqdo qof qabyaalad iyo quran 429 la soo taagana ilaahay naga qabto kii dawladda caynay ama kii qabyaalad qabiil wax ku salaynayo inuu ilaahay naga xijaabo in la taageero wanaag in la taageero rajaynayna in hore loo socdaan rajaynayna Soomaaliya way socotay way kacday nabad iyo nolol iyo nabadgelyo iyo naxariis ayaa ka socota wadankii barwaaqadaasna waxaan rajaynaynaa in dalku dhan uu ilaahay gaarsiiyo waad la socotaan isbedelka wadanka ka jira iyo sida ummadda Soomaaliyeed ay ugu riyaaqeen wanaaga wadanka ka jira in wanaagaas oo dhan aan dhiirigelino dadka qaar waxyaalaha aan la yaabay dadkaasi ay sameynayaan waxa kamid ah in madaxda markay meel tagaan oo ay bulshada ay la kulmayaan la soo sawiro ayaa waxay leeyihiin waa igu sawir maba ka dhaadhacsanaba in madaxda Soomaaliyeed ay markay meel tagaan oo ay wax sameyn karaan ma ka dhaadhacsana oo cameraman ula socdo oo la sawirayo kamera dhacsana markaas waxay arkayaan wadamada ay qaxootiga ay ku yihiin madaxdooda markay arkaan oo shacabka ku dhex jira inay noo soo sawiraan ayay natusayaan markaas waxay naga dhaadhicinayaan kan madaxda wadankeena ayay waxay ka dhigayaan xumaan oo waxay leeyihiin waa igu sawir wadamada qaxootiga ay ku yihiin ragaasna sawiradu inay noo soo qaadaan ay noo bumbuuninayaan cid idinka yeelaysa ma jirto propaganda fake warar fake ah bulsho kicin qabyaalad qurun filinka wuu soo xirmay oo aan ka hortageynaa dadkaasi qaarna waxa igu maqaala ah dad fara badan oo ila soo xiriiray inay ii sheegeen inay waceen dadkaasi ama shakhsiyaad inay waceen ay yiraahdeen akoon baan ku sameeynaa ciwaan baan ku sameeynaa magaca Salmaan samayso dad ku cay asaga dadkaasi dhalinyaradaasi oo ila soo xiriirtay oo ka diiday oo ka biyo diiday sharaf iyo cizi iyo karaama iyo mudayihiin waxaan rajaynaynaa inaan horay aan u socono ayaan rajaynaynaa marka Soomaaliya ha socoto Soomaaliya ha guuleysato Soomaaliyana mar walbana kor Allah ka dhigo Cabdullaahi Ciise Maxamuud ina mar walba ku dayanaan rajaynaynaa iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo madaxdii dalka iyo SYL iyo halgamayaashii wadanka dhamaanteen waxa naga dhaxeeya buluugaas ayaa naga dhaxeeya maalinta kor noqdo oo cadawgiisa uu ka saramaro markuu cadawgiisa uu ka saramaro ayaan markaasi waxaan noqon doonaa dad waxyaalaha qaar markaasi iyo faakihaysi iyo waxyaalo kale inaan ka sheekaysano laakiin intuu calankeena noo baahan yahay dhulka inaan ka qaadno kor aan u qaadno oo aan meel sare gaarsiino oo aan bulshada ama caalamka aan tusno in Soomaaliya ay wali ay nooshahay yaan la yeelin yaan la aqbalin reer hebel waxay lahaayeen halkaasi jagadaasi lahaayeen jagadaas dadkaas la siiyay ha yeelin ha aqbalin hubaadna laga dhigaya hubka dadkaas loo geeyay ha aqbalin hub la qaado waxa la geeyay gobolkaas la geeyay ha yeelin all waxaasi waa propaganda waxba kama jiraan warar noocaas oo kala ayaga sameeya waa la sameeyaa waxa la yiraahdaa war samays warka waa la sameeyaa ayaga sameeysta isku aadista kadibna masawira la saaraa la xanay saaraan bulshada ka dhadhicinayaan laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu manaystay aqli iyo barbaarin wanaagsan iyo waalid dal jacayl nagu soo barbaariyay wixii xumaanta mar walba inaan ka hortagno dadka Soomaaliyeed hadeesan saxaafadu ama aaladaha loo isticmaalo social media oo photoshobyada lagu sameeyo deesan garanaynin anaga iyo team kalena ilaahay ayaana baray sidaan uga hortagnana aqoonteeda ilaahay ayaana siiyay marka waxaan rajaynaynaa dadkaasi waxyaalo idin sheegi doonaan waxyaalo badan ay sheegi doonaan shakhsiyaad ay doonaan looma jawaabo qofka markuu hadduu ay walba meel ka qayliyo oo ciyo ay walba duu qayliyo hada dhagax ku turto xogaa waa laga wanaagsan yahay marka oo kaliya waxaan siinaynaa taladaan siinayna waxay tahay Soomaaliya uma baahna maanta qof burburiya
Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay qof dhisa ayay u baahan tahay dhagax in meel laga qaado meel la dhigo kaliya u baahan tahay shalay xasan sheekh ay haysteen oo madaxweyne xasan sheekh ay dhibaato ku hayeen oo waxay dhahayeen Turkiga guri ka gatay waxaan idinku dhaaranayaa madaxweynuhu dhowr jeer ayaa xasan sheekh la kulmay halkan kula kulmay inuusan wax guri ah uusan halkan ka gadan waa propagandada meeshay gaartay laba maran la kulmay gurigan ugu tagayna waa guri dawladda Turkiga si ku meel gaar ay u siisay waxaas laga dhaadhicinayay shalay laakiin aniga waa sugayay dawlad cusub inay timaado iyo ragga ina aragtaan wali waa taagan yihiin shalay waxay amaanayeen bilowgii hore farmaajo marka campaign-ka uu socday farmaajo amaanayeen maantana waa la caynaya marka ogow dhibaatadu meesha ka socoto ayagu kaliya ma aha silsiladu way dheer tahay haddii maanta nin ajnabi ah lagu soo adeegsado waa iska dhicinaynaa laakiin qof Soomaali ah oo qabiilada Soomaaliya kamid ah oo shakhsi ah haddii lagu soo adeegsado xoogaa la soo siiyo wuxuu rabo kuu sheegaya waxa laga yaabaa waxaana la fahmay dadka Soomaalida qabiilka inay xooga ku rooyihiin oo dhankaas laga marin marka ragaasi dhanka qabiilka marayaan dhanka qabiilka ay marayaan qabiil ahaan ay wax isugu deen dadka inay iska horkeenaan laakiin waxaysan ogeynba dawladda marka madaxweyne farmaajo la dooranay meesha ugu horeysay oo laga dabaaldegay inay Muqdisho ahayd ayay raggan aysan ogeyn marka aan ku dhiirano wanaaga yaan qabiilka dhinaciisna laga soo marin aan ogaano inaan nahay inaan nahay dad isku mabda hal meel hal yool aan yeelano hal meel aan tigsano dawladnimada iyo wanaaga aan hiigsano isbedelka wadanka ka jira aan u hilino waxyaalo badan jiro isbedel jiro yaan lagu niyad jabin dadkaasi qaar waxyaalaha ay soo qoraan ha aaminin yaa lagu niyad jabin wadanka gudihiisa wariyaala joogo oo xaqiiqda ka hadla TV ka hadlaan social media leeyihiin waxay soo dhigaan aqri website-ya jiro inkastoo website-yada qaarkood qabiil ay leeyihiin oo ayagu ay leeyihiin haddana ha aaminin marka waxaan rajaynaynaa in horey loo socdo guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan bisha barakeysan ee Ramadaan qeyrkeeda inuu Ilaahay na siiyo shayaadiinta waaweyneed maalinta Ramadaanka uu soo galayo shayaadiinta oo dhan iyo waa la xixiraa laakiin shayaadiin yara jirto oo iska soo fafakanayso haatan aan la socto dhibaatada ay bulshada ay ku hayaan ayagana waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay naga qabto wadanka inuu u duceysa markaad afurtaan wadanka inaan loo duceeyo marka saxuurtaan wadanka in loo duceeyo in wanaaga lagu dhiirado in wixii horumar ahna hore loo socdo qof walba Soomaaliyeed oo wanaag oo dawladnimo jecel ama dalkiisa jecel dadkiisa jecel cadow leeyahay waan ogahay cadow aan leeyahay qof walba propaganda sameynaya laakiin hal ku dib ayaan leeyahay oo ah in ilaa aan yoolka aan higsanaya aan gaaro yani ma leexanaya ma istaagayo aniga dawlad laan igu soo dhacday la igu soo barbaariyay caruur fara badan dhalinyaro fara badan ma doonayo jiilka aniga iga dambeeya in saddex shakhsi inay u horseedaan qalalaasa kala wadanka inuu ka dhaco taasi ma yeelino horan u socon doonaa hadduu Ilaahay idmo wixii wanaagna waan ku dhiiran doonaa Soomaaliya mar walbana way guuleysanaysaa Facebook leeyahay Salman Jamal News leeyahay waa la jabsaday Facebook-ga waa kan cid iga jabsatay mala kan aan leeyahay kaaha aaminina cidii like saartay like ta kala noqo waxaan rajaynaynaa in hore loo socdaan rajayn doonaa hadduu Ilaahay idmo ballanteenu waxaa weeye inaan Soomaaliya nabad iyo nolol guul iyo gobonnimo hore in loo socdo wanaag in lagu dhiirado qabiilkana markaasi laga fogaado aniga qabiilkayga waa Soomaali adina qabiilkaaga waa Soomaali dhammaanteen isku qabiilaan nahay wiilasha gobolada Soomaaliya ku nool oo dhan hallaan nahay we are one hal ayaan nahay qabiil iyo propaganda iyo waxyaalo kale ayaan na lagu soo dhaxfaafin aan iska qabano aan wacyigelino anagu waxaan naga daran dhalinyarada dawladda ku jiro oo marxaladda adag ku shaqeynay oo ciidamada ugu horeeyaan oo dhalinyarada ciidamada ah askarta wiilasha ah oo wadanka u halgamaya oo 24 saac wadooyinka taagan oo dhibaatada ku jira kuwaas la rabaa shaqooyinka hayaan dadka inay niyad dilaan laakiin lagama yeelayo horan u socon doonaa waan guuleysan doonaa shacabkana mar walba way guuleysan doonaan Soomaaliya guul iyo gobonnimo
munaasabadii koowda luuliya soo socota koowda luuliya loo sii dabaaldego munaasabadaha goboleysiga iyo waxaana aan iska ilaalino qarankeena mar walba aan u helino cadowga Soomaaliya hadda anaga noo baahan dalalka adduunku maanta anaga noo baahan yihiin bal aan iska dhicin horeyn aan u socono waxaan idin rajaynayaa inaad guuleysataan aad dhiirataan oo wanaag aad ku dhiirataan Soomaalinimada aad kor u qaadaan qof walba Soomaaliya walaalkaaga kala Soomaaliya taageer waad u jeedaan wiila waxa lagu dilay South Africa hooyo Soomaalida Mareykanka dhibaato loogu geystay qolooyin kala Ingiriiska dhibaato loogu geystay dadkaas oo dhan wadanka haduu nabad ahaan lahaa dhamaanteenana waxay noqon lahayd wanaag ay noqon lahayd marka waxaan rajaynaynaa inaan hore u socon rajaynaynaa wadanka haduu nabad noqon lahaana waa guulaysan lahayn oo horay ayaan u socon lahayn marka waxaan rajaynaynaa marka dadka Soomaaliyeed inay marka ay ku dhiiradaan wanaaga inay ku dhiiradaan marka aniga sharafta wadankeyga iyo sharafteeda lacag kuma gadanayo inaan wadankeyga inta u shaqeyn karo inaan u shaqeeyo ayaan rajaynayaa marka habeen wanaagsan Ramadaan mubaarak Ramadaanka fadligiisa iyo taraawiixda mar walba aan u degdegno qeyr ayaan idin rajaynayaa inaan hore u socotaan ciwaan kale aan la yahay ma jiro aan kan ahayn kanaad igala soconaysaan ciwaanka kalena waa ka salgaari doonaa duu Ilaahay idmo inta ka horeysa waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته